kalfadhigani ayaa ahaa kalfadhiga lixaad kulankiisa soddonaad ee mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya waxaana kulankani shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey kooramka xildhibaanada ayaa ahaa 140 mudane ajandaha kulanka ayaa ahaa akhrinta labaad ee hindis sharciyeedka jaangoynta iyo tayadhowrka Soomaaliyeed xildhibaan daahir oo ku hadlayay afka guddiga jaangoynta iyo tayadhowrka Soomaaliyeed ayaa xildhibaanada ka hor akhriyay wax ka bedelka lagu sameeyay hindis sharciyeedkan jaangoynta iyo tayadhowrka waxaan ka soo shaqeeyay asagoo la tashanaya sharci yaqaano kala duwan iyo bulshada qiimaheeda kala duwan akhriska kadib waxaan la tashanay qaybo kala duwan oo ka mid ah ganacsiga bulshada qaybaheeda kala duwan iyo sharci yaqaano kadibna naqabkan maanta inuu hor yaalla oo aad loogu talagalay golaha baarlamaanku inay wax ku kordhiyaan waxana ka dhimaan baan maanta inuu soo gudbinay madana gudoomiye sharcigan oo tayadhowrka iyo jaangoynta wuxuu muhiimad gooni u leeyahay bulshada Soomaaliyeed annagoo saaraynay ugu cuslayn in wadankan uu helo quality control rasmiya maadaama ay ka jiraan badeecadaha ka soo dega dalkeena iyo wax kastoo soo galayaan dawladda noqotee xildhibaanada golaha shacabka ayaa ka hadlay wax ka bedelka iyo ku darista lagu sameeyay hindis sharciyeedkan meeshaas waxaan xoogaa cadeyn in laga bixiyo xoogaa dhaxda waxa ku jirtay qodob xoogaa tuun abuuray oo ahaa incentive meel ka qaadan karta waxba waa la bixiyaa leeyahay qodobkaas okay waa fiican yahay sharcigan aad buu muhiim u yahay waayo wadankeena dhibka ka taagan xagga badeecadaha iyo waxyaabaha dhacay amaba sumoobay ee wadanka la soo geliyo ayuu u yahay faafreeb u yahay ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk Soomaaliya injineer Cabdullaahi Xasan Cali ayaa dhankiisa ka hadlay kulanka oo ku saabsan habka waxa aan raacayno ama standardka aan raacayno annaga waxay la noqotay in lagu shaqeeyo East Africa standard sababtoo kaasi waa kan ugu oo xagga cimilada iyo muxuu ahaa isku gudbinahay isku gobol aan ku noolno marka waxaan isleeyahay kaasi waa midka